ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay la kulmeen waxyaabo cajiib ah kuwaas oo caalamka hore loogu arag. Ciidamada loo yaqaan US Marine qaybtooda Section 51 ayaa bishii February ee sanadkan 2018 waxa ay ku arkeen deegaanka Waajid ee ka tirsan gobolka Bakool suxuunta duusha. waxyaabaha kan oo ah waxyaabo cajiib gelinaya nafta bini'aadanka ayaa waxa ay yihiin waxyaabo hawada sare duulaya kuwaas oo aan ku soconaya xawaare aad u sareeya. muuqaal ay ciidamadu soo galiyeen barta ay ku leeyihiin YouTube-ka ee loo yaqaan Section 51.20 ayaa waxa uu muujinayaa ciidamo lugeynaya meel saxara oo buuralaya kuwaas oo ay dul marayso suxuun aan la garanayn waxa ay yihiin. muuqaalka ayaa waxa uu muujinayaa in ciidamadu ay isku dayayaan inay ka hortagaan oo ay ka galaan dhufaysyo, laakiin waxyaabaha kan cajiibka ayaa waxa ay yihiin kuwa hawada ku jira iyagoo ku duulaya joog ka sareeya bini'aadamka laakiin u dhow madaxooda. ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka Bakool ayaa waxay u muuqdaan kuwo la kulmay waxyaabo cajiib ah, waxaana loo maleynayaa waxyaabaha kan inay ka yimaadeen caalamyo kale sida ay sheegeen culimada saynisku. muuqaalka ayaa waxa uu muujinayaa ciidamada oo isku dayaya bal inay ogaadaan waxa kan waxay yihiin laakiin aan hubin waxa ay yihiin. muuqaalkan waxa uu muujinayaa askari u taagan difaac ahaan inuu qorigiisa u haysto, laakiin waxyaabaha kan suxuunta ee hawada ku jira ayaa ku soo dhawaaday iyagoo aan la garanayn ujeedada waxyaabahan. buuraleyda gobolka Bakool ayaa waxa ay tahay meel ay ku badan yihiin macaadintu sida la sheegayo, laakiin waxa loo maleynayaa waxyaabaha kan inay ilaaliyaan macdantaasi. muuqaalkan ayaa waxa uu muujinayaa iyadoo ay waxyaabaha kan ku soo dhawaanayaan askarta, laakiin aan la garanayn cidda wada iyo waxyaabaha ay yihiin. Soomaaliya ayaa loo maleynayaa inay ku jirto macdan iyo shidaal kuwaas oo aan wali la soo saarin. waxyaabaha kan ayaa loo maleynayaa inay waardiyaan macdantaasi, laakiin ilaa iyo hadda lama oga meelaha ay ka yimaadeen. geesta kale warbixintan waxaa lagu sheegay in muuqaaladan oo kale lagu arkay buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ee Soomaaliya, iyadoo ay jiraan muuqaalo kale oo kuwaasi la mid ah oo cajiib ah kuwaas oo lagu arkay in waxyaabaha hawada sare duulaya. waxyaabaha kan ayaa afka sayniska waxa lagu yiraahdaa UFO oo loo soo gaabiyay unobjective flying ama waxyaabaha duulaya aan la garanayn waxa ay yihiin, iyadoo markii Soomaaliya loo fasirana loo yaqaano suxuunta wareegta. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa loo maleynayaa inay la kulmaan waxyaabo cajiib ah kuwaas oo khatar gelinaya nafta bini'aadanka. ilaa iyo hadda lama garanayo waxyaabaha kan meesha ay ka yimaadeen, laakiin waxay u egyihiin waxyaabo cajiib ah kuwaas oo aan la garanayn meel ay u socdaan iyo meesha laga maamulo toona.